every minute, one of these 20 contestants will be eliminated. Show you what the best first car is. I'm going to show you how to properly maintain it because let's just say you're a parent or guardian for that first-time driver. Assalamu alaikum, soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaan ahay Ibrahim Aadam. Muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo shan eray oo maaragtay aad muhiim u ah. Shantan eray inta badan waad maqashaan. يعني haddii aad muuqaal YouTube daawanayso oo kale, haddii maaragtay TikTok aad daawanayso oo kale, ama nolol maalmeedkaaga caadiga ah, waxa laga yaabaa mostly erayadan in aad maqashid. Erayadan aan kula wadaagi doono aad iyo aad ay muhiim u yihiin sababtoo ah maaragtay waa erayo si daily loo isticmaalo. Haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar ama ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah la wadaag oo u share garay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Okay, haddii aan u gudagalno muuqaalkeena maanta, ereyga ugu horeeya aan maanta baran doono wuxuu noqon doonaa maintain, to keep something in a good condition. Yani in shay la joogteeyo. Maintain waa joogtayn ama ilaalin shay in lagu ilaaliyo heerka uu joogo, ama maaragtay in shay la cusboonaysiiyo oo kale way noqon kartaa. Mostly waxaa la isticmaalaa markii application oo kale ama maaragtay mashruuc oo kale ama terms and conditions oo kale wax markii maaragtay la update gareynayo ama la joogteynayo shaygan inuu maaragtay si caafimaad qabo, yani waxan qabkiisa markii la ilaalinayo oo kale waxa la isticmaalaa maintenance ay mostly la yiraahdaa maintenance. haddii aan marka tusaale soo qaadano, tusaaleheena ugu horeeya wuxuu noqon doonaa it's important to maintain your health by eating well. يعني waa wax aad iyo aad muhiim u ah ama wanaagsan inaad doorto caafimaadkaaga, inaad yani wax kasto junk foodka, yani fast foodka, waxyaalo cuntooyinka oo saliidda leh, waxaas oo dhan inaadan cunin, inaad cunto wanaagsan cunto by eating well. inaad cunto wanaagsan oo healthy ah waxay ka hortagi doontaa in naftaada ama caafimaadkaaga soo gaaro yani damage oo kale. So it is important to maintain your health by eating well. Okay, haddii aan tusaale labaad soo qaato wuxuu noqon doonaa they maintain the building regularly to prevent damage. waxay maaragtay markasta maintain gareeyaan ama markasta waxay maaragtay update gareeyaan ama joogteeyaan inay maaragtay maintain gareeyaan. maintain waxa weeyaan dayactir, inay dayactiraan buildingka si uga hortagaan damage, yani dildilaac iyo waxyaalahaas inuu guriga galo ama maaragtay wasaqoobo, waxyaalahaas oo dhan si uga hortagaan markasta waxay joogteeyaan inay dayactiraan ama maintain gareeyaan. Okay, ereygeena labaad oo maanta aan baran doono wuxuu noqon doonaa participate ama participate. Tida waana muujin kartaa haddii ardayna D u isticmaali kartaa. So participate, to take part in activity or event. inaad ka qayb qaadato event, inaad qayb ka ahaato. Participate, ka qayb qaadasho weeyaan. Okay? So haddii aan tusaale soo qaadano, students are encouraged to participate in class. ardayda waxaa markasta lagu dhiirigelin inay ka qayb qaataan classka ama classka ay joogtayaan ay soo xaadiraan ayaa lagu dhiirigeliyaa. marka participate waa ka qayb qaadasho, inaad wax ka qayb qaadato. haddii aan example labaad ama tusaale labaad aan soo qaato wuxuu noqon karaa many people participated in charity run. charity yani charity ama charity waa dhihi kartaa. charity waxa weeyaan waa foundation, meelaha maaragtay khayriga ah, hay'adaha khayriga ah, yani caawiya ayaa charity la yiraahdaa. So many people participated in the charity run. yani dad badan ayaa waxay ka qayb qaateen inay reengareeyaan ama maaragtay caawiyaan ama yani wax ku tabarucaan taageeraan maaragtay charity-ga ama foundation-ka. haddii aan u gudubno ereygeena saddexaad oo maanta aan baranayno wuxuu noqon doonaa contribute, to give or add something to help or support. inaad wax ku darsato, inaad wax caawiso kale. contribute, fikradaadu kale inaad wax ku darsato, inaad maaragtay charity-ga haddaan sheegayno kale inaad lacag aad siiso kale, ama qof inaad wax ku taageerto, yani waa tabarucaadna waan dhihi karnaa, taageerid waan dhihi karnaa. So haddii aan tusaale soo qaato wuxuu noqon karaa she contributed a lot of ideas during the meeting. waxay ku tabarucday ama waxay nagu soo biirisay, ku biirin way noqon kartaa. fikrado badan ayay nagu soo biirisay intaanu meetingka ku jirnay ama maaragtay intuu meeting socday, fikrado badan ayay nagu soo biirisay. she contributed a lot of ideas during the meeting. Okay, haddii aan tusaale labaad soo qaato wuxuu noqon karaa everyone contributed money to the fundraiser. Okay, qof kasta wuxuu ku tabarucay ama nagu soo biiriyey ama ku biiriyey lacag fundraiser-ka. fundraiser waxa weeyaan lacag aruurin. fundraiser yani lacag aruurin weeyaan. So qolyaha lacag aruurinta ayaa lacag ku darsatay, yani lacag baad siisay, so waxaad noqotay contributor, yani waxaad ku contribute garaysay inaad lacag siisay. Okay, haddii aan u gudubno ereygeena afraad oo maanta aan baran doono wuxuu noqon doonaa
announcement to make something known publicly or officially in wax laga dhigo inay dadka dhan ogaadaan in dadka dhan la ogeysiiyo shay yani waa ogeysiis announcement waad maqasheen umalina ogeysiin yani ogeysiis so announce waa inaad qof wax ogeysiisid okay haddii aan example ama tusaale soo qaato the company will announce the new product next month company-ga wuxuu announce garayn doonaa ama shaacin doonaa productiga cusub bisha dambe haddii aan tusaale labaad soo qaato wuxuu noqon karaa they announce the results of the contest yesterday contest waa maqashaa umaleyna inta badan contest waa tartan qofka tartamayana wuxuu noqon doonaa contestant so waxay announce gareeyeen ama shaaciyeen resultiga tartanka shalay yani shalay ayay shaaciyeen ama maaragtay ay announce gareeyeen natiijada ama resultiga tartanka shalay ayay announce gareeyeen okay haddii aan u gudubno ereygeena shanaad oo aan maanta baran doono wuxuu noqon doonaa handle waxaa laga yaabaa badankiin inaad maqasheen ayadana handle macnaheedu waxa weeyaan to manage or deal with a situation or task inaad la dhiil garayso ama aad manage garayso handle waxa weeyaan inaad awooddo inaad wax qabato kaliga to handle can you handle with this situation okay haddii aan tusaale cad soo qaato wuxuu noqon karaa he knows how to handle stressful situations well si fiican ayuu u yaqaanaa sida loo maareeyo ama loo awoodo in loogu dulqaato xaaladaha stresska zaa'idka ah oo kale tusaale labaad haddii aan soo qaato can you handle this project on your own projectigan ama mashruucan ma handle garayn kartaa kaliga yacni ma awooda kaliga mashruucan aad qabato awood moo leedahay can you handle this project on your own ma handle garayn kartaa projectigan adiga kaligaaga okay haddii aan soo kormarno erayadan soo qaadanay maintain joogtayn ama dayactir maintain joogtayn markaan ku leeyahay joogtayn consistency ayaa joogtayn ah laakiin maintain waa dayactir shay in la joogteeyo in maaragtay gacanta lagu hayo markasta laga taxadaro participate waxa weeyaan asagana inaad wax ka qayb qaadato contribute inaad wax ku tabarucdo ama wax aad dad kale ku biiriso oo kale ama fikrad ha ahaato ama lacag ha ahaato announce waxa weeyaan in wax la shaaciyo shaacin in wax maaragtay si public ah dadkoo dhan loo shaaciyo la sheego handle waxa weeyaan inaad awood kaligaaga oo kale inaad wax samayn karto inaad wax awooddo inaad maaragtay la handle garayn karto yani handle af Soomaaligeeda ma aqaan laakiin waxay noqon kartaa inaad awooddo inaad wax samayn karto kaligaaga oo kale sidaas ayay noqon kartaa okay ereyada aad badanaa maqashay waxaa ka mid ah aan dhihi karaa participate oo kale maintain oo kale contest oo kale mostly ayagana waa maqasheen hadda Mr Beast oo kale badanaa wuxuu isticmaalaa contestants tartamayaal ay noqonaysaa Every minute, one of these 20 contestants will be eliminated. Contest waa tartan, contestantsna waxay noqonaysaa tartamayaal. Yani tartamayaal ayay noqonaysaa. So marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen erayadan. Fadlan haddii channelka ku cusub tahay subscribe inaad dhahdaa kilmaamin ama ugu yaraan hal qof asxaabtaada kamid ah la wadaag. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum.